maanta waxaan baranaynaa laba mowduuc domestic animals iyo qaraabada oo relative ah. Domestic animals xayawaanka guri-jooga ah: cow sac, camel geel, goat ri, sheep lax, camel geel, goat ari, sheep lax, donkey dameer, horse faras, dog eey, puppy cunuga eeyga, ram wan, donkey dameer, horse faras, dog eey, puppy cunuga eeyga, ram wan, donkey dameer, horse faras, dog eey, puppy cunuga eeyga, ram wan. Domestic animals xayawaanka guri-jooga ah. Domestic animals xayawaanka guri-jooga ah. Domestic animals: lamb subayn, bull dibi, kitten ilmaha bisada, calf weyl, lamb subayn, bull dibi, kitten ilmaha bisada, cock diiq, chicks ilmaha digaaga ama digaagta yaryar, fowl cunug dameer, cat bisid. Halkana waxaa nooga bilaabanayaa ayadana mowduuco kale oo ah relatives qaraabo. Relatives qaraabada: mother hooyo, father aabba, brother walaal, sister aabayo ama walaasha, uncle abti ama adeer. Uncle mar abti waye marna adeer waye. Aunt habaryar ama eedo, grandmother ayeeyo, grandfather awow, aunt habaryar ama eedo, son wiilkaaga, cousin in adeerkaa, daughter gabartaada dhashay, son wiilkaaga, cousin in adeerkaa, daughter gabartaas adi dhashay ayaa la yiraahdaa daughter gh lama aqrinayo, waa silent letter. Daughter gabarta. In-laws reer xididka, dadka aad ka guursatay. Mother-in-law sodo, father-in-law sodog, sister-in-law dumaashi, brother-in-law seedi. Wabillahi tawfiiq.